cashirkiin inoo socday waaye waa cashirkii 27 oo ahaa sida loo sameeyay scriptka window Powershell ISE command caawa cashirkeen wuxuu ka saabsan yahay scriptkii aan sameynay in aan sameyn karno wax la yiraahdo shortcut oo aan u sameyn karno desktopka ku dheeraamayo marka hore halkaas aan tegayaa marka waxaan rabnaa inaan sameyno shortcutkaas aan u isticmaalayno glasskeena dambe waxa la yiraahdo batch filing ayaan u isticmaalaynaa marka ugu horeyso window PowerShell script can be launched from a desktop shortcut loo isticmaali karaa marka scriptka aad samaysid waxaad u isticmaali kartaa desktopkaada ayaa shortcut ugu isticmaali kartaa adigoo aad rabtid inaad isticmaashid waxa la yiraahdo batch file ama window batch file haddaba shortcutkan aad arkaysaan uu ka duwan yahay it is a little different from a standard shortcut ugu dambeyntii waxaan rabaa first waxaan create gareynayaa a shortcut window batch file and then right click ayaan sameynayaa shortcutka and then waxaan ku carsiinayaa run with the PowerShell script marka hore waxaan furanayaa window PowerShellka sawarkeesan halkaas ayaan tegayaa cd aan leeyahay /enter aan dhahayaa kabacdi waxaan leeyahay dri aan leeyahay oo ku taab gareynayaa enter aan leeyahay labadii cashir oo lasoo dhaafay cashirkii 25aad waxaan create gareeyay first script ayaan create gareeyay kii 26aadna waxaan create gareeyay scriptkii labaad marka scriptkan ayaan rabnaa inaan u isticmaalno batch file annagoo shortcut u sameynayno desktopka aan u sameynayno marka ugu horeyso halkaas imaanaya desktopkayga right click ayaan leeyahay right click markaan dhaho new aan dhahayaa markaan new dhaho shortcut ayaan taabanaya meeshay ku qorantahay shortcutka markaan isticmaalo halkaas browserkaan leeyahay waxaan ka tegayaa meeshay ku qoran tahay this pc waxaan kasii tegayaa meeshay ku qoran tahay window hoosaan u soconayaa markaan ku socdo scriptka koowaad ayaan rabaa inaan u isticmaalo wax la yiraahdo batch file ama scriptka inaan ka dhigto shortcut okay aan leeyahay halkaa waxay igu soo qormayso first script ps1 next aan taabanayaa kabacdi haddana waxaan leeyahay first ps1 finish aan leeyahay haddaba halkaa aa arkaysaan waa kaasaa shortcutka waxa la yiraahdo aan desktopkaygu isticmaalay ugu dambeyntii waxaan right click leeyahay right click markaan dhaho batchka aan sameeyey batch fileka right click markaan dhaho kabacdi waxaan ku xijinayaa meesha ay ku qoran tahay run with the PowerShell waa arkaysaan PowerShell run uu noqonayaa markaan dhaho isla markii batch fileka aan create gareeyay ama scriptka aan create gareeyay horuu ka noqonayaa marka tan waxaa weeye waa batch file waxa la dhaho weeyaan marka cashirkan waa cashirkii 27aad weeyaan hadda waxaan create gareynay shortcut oo loo isticmaali karo batch file window script haddii aad cashirkan ku cusub tahay ama glasskan ku cusub tahay ama janankan waxaa waaye like taabo comment ka bixi subscribe-kana noo saar commentkaadu waa muhiim waa inoo cashirkeena dambe